بسم الله الحمد لله وكفى على نبي المصطفى ودرسيني شنات برنامج كيني هقبتره أسود دياريي معهد دار العلوم وأنا مادتيني لغة عربية صف الرابع الثانوي. عشر كيني مع عوانك وحكب لابنا يا الاستشراق waxaan ku soo jirnay waxyaabihii keenay kor u kaca suudaanta carbeed. waxaan qaadanaynaa kii ugu dambeeyay oo ah al-istishraaq. istishraaq maxaa la dhahaa xagga luqada iyo xagga istilaaxa asaa kuu sheegi doona. wuxuu ku leeyahay al-istishraaqu fi luqa. istishraaq xagga luqada waxaa la yidhaahdaa dalabu sharqi oo la dalbo walaysa dalabu sharqiga oo la dalbo ma ahan siwaa dalabu culuumi sharqi culuumta bari oo keliya in la dalbo ma ahan buu ku leeyahay wa aadaabihi iyo aadaabtiisa iyo luqaatihi iyo luqaadkiisa. istishraaq siintaasi ta'daasi waxay ku tusinaysaa waa dalabu sharqi dalbid la dalbayo sharqiga. istilaaxa waxaa lagu yiraahdaa ama fi istilaaxan فهو دراسة تسعى إلى تركيز مجالات محددة في حياة الشرق والمسلمين خاصة. فهي أيضا دراسة ودراسين تسعى مركا وأديجيس أصعنيسه إلى تركيزي أو الصقه على مجالات محددة هيرر لحددي وفي حياة الشرق والمسلمين خاصة ay ku saabsan nolosha bari iyo muslimiinta gaar ahaan. istishraaq waxaa la yidhaahdaa waa aqoonta lagu baranayo aqoonta bariga taalo ee gaalada ah iyo muslimiinta aqoontooda daraasada lagu daraaseynayo noloshooda ayaa la yidhaahdaa al-istishraaq. waqad addad hadihi alxaraka xarakadan oo istishraaqa ah waxay gudatay ilaa inshaa'i jamciyaat camaliya inay abuurto jamciyaad camali ah ururo jamciyaad cilmi ah inay abuurto jamciyaad markaasi xagga cilmiga ka hadlayo iyo macaahid inay abuurto tuudixu fiiha lagu cadeynayo adaraasaat khaasa aqoon gaar ah oo bitilka majaalaadka aan soo sheegnay majaalaadkaas iyo heerarkaasi ku saabsan. waqad ashamat tilka aljuhuud fi nahdi aladab alcarabi fi casr alxadiid. waqad ashamat waxay ka qayb qaadatay xarakatu alistishraaq tilka aljuhuudi waqad ashamat waxay ka qayb qaadatay tilka aljuhuudi dadaaladaas oo jamciyaad in la inshaa'iyo iyo macaahid daraasaadkaas lagu baranayo in la furo waxay sabab u noqotay fi nahdati aladab alcarabi suudaantii carbeed ee kor u kaceedii fi casr alxadiis casrigii cusbaa. marka istishraaq maxalka aan ka rabno waxay tahay waqad ashamat tilka aljuhuud fi nahdati aladab alcarabi fi casr alxadiis واي ما دام أن كجرنا النهضة الأدبية في عصر الحديث ما دام أن كجرنا. وإنما إنكر معها نتج عنه كثير من الآثار السلبية من الأفكار والتقاليد الغربية التي أحدثت قللا في المجتمع العربي. أيضا أصيدا أي تهي أي وحا الشيء وحبضا أو آثار سلبية waxyaaba aan fiicnayn oo afkaara maadaama wax la baranayo ay tahay iyo howsha waxa wada ay yihiin dad mustashriqiina markaa afkaar oo xun iyo taqaaliid qarbiya iyo dayasho lagu dayanayo dadkii gaalada ahaa allatii taasoo axdathat kusoo darisay khalalan nusqaan fi lmujtamaci alcarabi mujtamacii carbeed
maadaama gaaladii muslimiintii ay noqotay markaa inay aqoontii wadaagaan, waxaa timid marka in asaaliib aathaar salbiya oo afkaarta fikirada ah iyo taqaaliidii dad muslimiin badan ay arrinkaas iska qaateen ay ku daydeen. ciwaanka labaad wuxuu noqonayaa nawaahid nahdatu ladab alcarabi, cawaamil ukhraa. waxaa jira waxyaabo kale oo keenay inuu suudaanta carbeed korkac ay samayso. hunaaka cawaamil ukhraa, waxaa jira cawaamil kale oo saacadad kaalmaysay calaa tadawur ladab alcarabi, suudaanta carbeed inay tadawur ay samayso. watacadada asaalibuhu, asaaliibtiisana ay tacadudo. watabaayana qawaabiluhu, anwaacdiisuna ay kala duwanaato. waxaa ka mid a mithla ixyaaءi الturaathi walmaktabaat alcaama alatii qaamat bijamci اlquraa, in marka lasoo nooleeyo turaadkii, dhaxalkii cilmiyeed iyo makaatib caama oo dadka wax akrinaya marka ay ku kulmaan, iyo waziyaadati cadad اlkutub اlmadbuuca, kutubta madbuuca la daabacayana tiradooda ay ziyaado markaa, iyo ihtimaam bimaa duburi اlkutubi, in maaragtay iyo bibinaa'i in la dhiso, iyo dowr اlkutubi walmajaamic alcilmiya wallugawiya, kutubta dowrkoodii iyo majaamic cilmiya in la sameeyo markaa. wa min ahami tilka almajaamic, majaamicdaasi waxaa ugu muhiimsanaa golayaashaas aqooneed, waxaa ugu muhiimsanaa almajmac alcilmi, golihii markaa ku yaalay fi dimashq sanadka markuu ahaa 1338 hijri, milaadigana markaa waafaqsanaa 1919. kadibna majmac luqat alcarabi fi misra markaa ahaa asigana sanadka markuu ahaa 1351 hijri oo waafaqsanaa 1932. majmac alcilmi fi baqdaad sanadka markuu ahaa 1366 alhijri oo waafaqsanaa 1947. taqwiim dars, cashirkii su-aalihiisa. waaya darsiga taqwiimkiisa wuxuu noqonayaa su-aasha ugu horeysa waxaa la yiri cadid cawaamil nahdati aladab alcarabi fi casr alxadiid uma taxadath can waaxidi minha biijaaz. waxaa tirisaa cawaamisha keenay kor u kacay suudaanta carbeed mid kamida ka sheekay marka. ma athara kulu min atarjumati wadabaacati fi nahdati alcarabi, maxay tahay raadka saameynta oo tarjumad kasta iyo daabacad kasta oo kor u kacay suudaanta carbeed saameyn u noqotay. kayfa ashamat xarakatu ixyaa turaath tadawur aladab alcarabi alxadiid, waxaa sheegtaa xarakatu ixyaa turaath, xarakadii soo nooleynaysay dhaxalka cilmiyeed, qeybkay kaga qeyb qaadatay adabkii carbeed inuu maaragtay kor u kaco. taxadath biijaazin, si kooban ugu sheekay can aathaari salbiyati, waxyaabihii xumaa salbiga ahaa alatii natajat can alistishraaq, ee ka dhashay istishraaq, in reer galbeedka maaragtay daraasadoodii iyo aqoontoodii iyo itisaal bilqarbi iyo xiriirkii lala sameeyey reer galbeedka. istishraaq waa bari waaye. nahada aladab الsoomaali, adabka soomaaliya kor buu u kacay fi qarni العشرين, qarnigii 20aad. ma hiya alcawaamil alatii adat fi dalik, cawaamisha arrinkaas keentay maxay tahay. wahal hunaalika calaaqat baynahu wa bayna adabi alcarabi, xiriir ma ka dhexeeya suudaanta soomaaliyeed iyo suudaanta carbeed. uktub waxaa sheegtaa can dowri majaamic lugawiya fi nahdati alcarabi birujuuc ila maraajic, adoo maraajicda waaweyn iyo kutubta waaweyn raadinaya oo ku laabanayo. waxaa sheegtaa dowrkii ay ka qeyb qaateen majaamicda luqawiga ah maaragtay suudaantii carbeed. soo qor laga soo shaqeeyo su-aalahaas insha allah. darsigeena intaasu ku egyahay. wasalaamu calaykum waraxmatullah.